Asalaamu calaykum. Muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay talo ku socota dumarka. Waa talooyin anfacaya haweenka ama dumarka. Waxaan idin soo jeedin doonaa sida caadada ah anigoo ah walaalkiin Cabditaah Khaliif. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Waxaa ku guursan karaa ninka dadka ugu xun sida Aasiya xaas ugu ahayd Fircoon. Haddana taa kama aysan bedelin daacadnimadeeda iyo jacaylka ay Alle u qabtay. Waxaa ku qabi karaa ninka ugu wanaagsan oo rag laga dhex doortay sida Nabi Alle. Haddana taa kuma geli kartid janno sida xaaska Nabi Luud calayhi salaatu wasalaam. Waxaad ahaan kartaa qof aan la guursan sida Maryama. Haddana Alle ayaa kaa dhigi kara darajadaada mid ka sareysa haweenka dunida ku nool oo dhan. Garo ahmiyadda iyo mudnaanta cidda aad siinayso iyo sida aad u kala horumarinayso jacaylka, daacadnimadaada, aaminaadaada iyo adeecidda waa xagga Alle marka koowaad. Haddaad Alle ka jeesato awaamirtiisa aad caasiso ogow xitaa haddii qofka dadka ugu magac iyo maamus iyo maal badan ku guursado kuma siin karo farxad iyo guul. Ogsoonow diinta Islaamku waxay sare u qaaday qiimaha dumarka. Haddaad Alle ku xirnaato naftaadana ka adkaato wixii lagu faray oo wanaag ahna aad ku dhaqanto, si kastoo dhib iyo xaalado adag ku soo maraan, waxaad helaysaa qanaaco, sabar iyo in Alle subxaanahu wa tacaala darajo sare ku gaarsiiyo adduun iyo aakhiraba. Ugu dambeyn, waxaad tahay boqorad soo saarta caalimka, geesiga, madaxweynaha, imaamyada, hogaamiyaasha. Maanta hadduu Alle wiilkaaga kaaga dhigay madaxweyne u yahay ummadda, kadibna uu guriga kugu imaado adigoo waayeel ah, deetana aad ka dalbato inuu cagaha kugu dhaqo kuna tirtiro, wuu qaadan amarkaaga. Ilaan hooyadiis ayaa tahay. Bal qiyaas madaxweynaha ummadda oo cagaha dhaqaya miyadaan ahayn boqoradda. Haddaba diinta Islaamka waxay ku xirtay waa taajkii boqortinimada. Ha iska dhigin.